maalinkii ugu horeysay ee uu jaamacadda ku biirayay ayaa waxa uu la kulmay wiil aad u ula yaabay. wiilkan ayaa ahaa wiil muuq ahaan aad ugu eg, waxaad moodaa inuu yahay mataan isaga la dhashay. yaabkiisii waxa uu sii kordhay markii uu ogaaday in ay isku maalin dhasheen. waxa uu u kaxeeyay qoyskiisii si uu arrinkan ula wadaago. waxa uu u sheegay in uu yahay mataankiisii uu soo helay maadaama uu aad ugu eg yahay. waxaase ama kaag iyo fajiciso ku noqotay markii ay u sheegeen sir khatar badan oo intii hore boqolaab ka daran. ma rumaysan doontid xaqiiqadan ka dambaysa qoyskan iyo la yaabkan argagaxa leh ee ay la kulmeen 3 bilood ka hor kulankii labadan wiil ee aadka isugu eg. Robert waxa uu ahaa wiil da'diisu tahay 19 sano, kana dhashay qoys dabaqada saddexaad ah. noloshiisuna waxay ahayd mid farxadeed ilaa uu u yimid maalinkii xumaa ee noloshiisa murugada u bedelay. markii uu dhameeyay dugsigii sare waxa uu ku biiray jaamacad. markii uu galayna waxa uu kala kulmay arrinkii ugu la yaabka badnaa ee uu la kulmay waligii. maalinkii ugu horeysay jaamacadda ayaa waxaa kadiso ku noqotay in dadkii ay u soo dhaweynayaan si diiran oo aad u xamaasad badan, sidii inay horay u yaqaaneen oo kale. waxay ugu yeerayeen magaca Aidi, waxayna u sheegayeen waxyaabo uusan xasuusanin. waxa uu dareemay walwal daran, mana uusan garanayn waxa dhici doona iyo waxa hareerihiisa ka socda ee yaab kale. maxay tahay? ma ruuxaan ay horay u yaqaaneen baa tahay mise maxaa khaldan? waqtigaas ayuu u tagay mid ka mid ah ardayda, waxa uuna u sheegay in uusan ahayn qofka ay u malaynayaan. ardaygii ayaa inta yaabay ku yidhi, oo ma suurtagal ba inaadan ahayn saaxiibkeen Aidi Galaan? waa uu diiday Robert oo waxa uu ku yidhi ma ahi ninka aad ii malaynaysaan. markii uu maqlay jawaabtiisa ayuu weydiiyey maalinka uu dhashay. markii uu sheegayna waxa u siyaaday yaabkii. ardaygaasi waxa uu ka dalbaday Robert inuu u raaco qof muhiim ah. waxa uu u kaxeeyay mid ka mid ah qolalkii jaamacadda. markii ay galeenna waxa uu la kulmay Robert yaabkii ugu weynaa ee noloshiisa soo maray. waxay kulmeen wiil ay aad isugu eg yihiin. waxa uu mooday Robert in uu muraayad hortaagan yahay oo uu iska dhex arko muraayadii. daqiiqado ayay yaabanaayeen oo ay kala aamusnaayeen. sidaas darteed Robert waxa uu u kaxeeyay wiilkii gurigooda si uu u tusiyo waalidkiis. waxa uu rabay in waalidkiis u cadeeyaan waxa khaldan. wiilkan ma walaalkiisba, ma mataankiisiiba, mise waa wax kale? sidaas darteed labadiisii waalid waxay ku khasbanaadeen in ay daaha uga qaadaan sirtii ay ka qaranayeen muddadii 19 sano ahayd. waxay u sheegeen in ay jirtay haweeney la samaysay xiriir aan sharci ahayn nin aan la garanayn. haweeneydaasi way uureysatay, waxayna filaysay in ay hal wiil dhali doonto, balse waxaa kadisa ku noqotay in ay uurka ku wado 3 ilmo ah. waxayna go'aansatay in 3daba ay ka takhalusto iskana soo rido maadaama ay tahay gabadh faqiir ah ana awoodin in ay 3daba qoodiso. haweeneydan ayaa waxaa soo wacay caalimka ku takhasusay cilmiga nafsiga ee reer Mareykan, magaciisana la yiraahdo Petrot Niabro. waxa uu aad uga bariyay in aysan ilmaha ka takhalusin ee ay deysato, isaguna uu ugu kharash garayn doono ilaa inta ay ka dhalanayaan. markii ay dhashana waxa uu ka dalbaday in ay mas'uuliyadeeda wareejiso, wixii inta ka dambeeyana ka madax banaanaato. isaguna waxa uu siiyay lacag dheeraad ah. sidaas darteed hooyadani waxay ka tanaasushay 3deedii ilmaha ahaa. caalimkana waxa uu go'aansaday inuu ilmahan yar mariyo tijaabo cilmiyeed oo aan ahayn mid insaaninimo leh, mid bini aadannimo aan midnaba lahayn. waxa uu 3dii ilmaha ahaa kala siiyay 3 qoys oo aad u kala fog oo ilmahaas iyagu waxa waalid ay ka dhiganayaan ayna u sheegayeen in iyagu dhaleen. tijaabadaasina waxay ahayd saamaynta deegaanka kala duwan uu ku leeyahay walaalaha halka dhiigga leh. waxa uuna kula ballamay waalidiintii qoysaskan in aysan u sheegin ilmaha waxa ku saabsan tijaabada caalimkan. arrinkaanina sir ayuu ahaa ilaa ay si kadis ah ku kulmeen walaalaha Robert iyo Aidi. qisadaanina waxay u baahday si aad u ballaaran, waxaana lagu qoray joornaalada iyo majalladaha. labadan walaalaha ahna si weyn ayay caan u noqdeen iyadoo ay sabab u tahay dhacdadii yaabka lahayd ee haleeshay. maalin ayaa waxaa dhacday in Robert uu soo wacay wiil dhalinyaro ah oo la yiraahdo David. wiilkaasi waxa uu u sheegay in uu yahay walaalkoodii saddexaad ee mataanka la ahaa. waxa uu u sheegay in ay hal maalin ay wada dhasheen, si aadna uu ugu eg yahay. dadku waxay u malaynayeen in ay farxad ku noolaan doonaan maadaama ay 3dii mataanaha ahaa kulmeen ugu dambeyntii. xaqiiqo ahaanna waxay marayeen xaalad aad u adag oo murugsan. bal qiyaas markii lagu yiraahdo sida aad u noolayd, qoyskaagu waa been, kuma aysan dhalin, oo la helow baa tahay. noloshaaduna waa khiyaari oo tijaabo cilmiyeed baad ku timid iyo si sharci darro ah.
xaaladaas oo idil ayaa sababay in mid ka mid ah wiilashii oo magaciisu Aydi ahaa uu galay murugo daran, waxa uuna geeriyooday isaga oo da'diisu tahay 33 sano. walaalihiis waxay galeen xaalad adag oo murugo ah oo qasan, waxayna go'aansadeen in ay xaqiisa raadiyaan. maxkamad ayayna ku fureen ciddii mas'uulka ka ahayd tijaabadaas cilmiyeed ee la sameeyey, waxayna dalbadeen in loo xukmiyo lacag aad u fara badan haddii ay guulaystaan. sanadii 2008 ayaa arrintoodii waxay soo jiidatay filin soo saare sameeya filimada dokumentariga ah. filinkiina waxa uu u baxshay saddexdii wiil ee baadida ahaa ee isku ekaa. filinkiina waxa uu u baahay si aad ah wuuna guulaystay. ilaa hadda dadka qaar badan ayaan rumaysan qadiyadeenna. qisadeennu waa mid dhab ah. waxaan ka xumahay inaan noqonnay tijaabo cilmiyeed sida jiirarka oo kale. muddo 19 sano ahna war umaanan hayn oo maanan garanayn inaan nahay dad tijaabo cilmiyeed lagu filiyey. muuqaalka waxaa idiin soo tabinayay idiinna soo jeedinayay anigoo ah Cabdulaahi Cabdikariin Khaliif. halkan haddaad soo gaartay waxaan kaa codsanayaa inaad inoo laygarayso, siina sheer garayso muuqaalka, halka hoosena faallooyin aad ku qorto wixii ra'yigaaga ah.